fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeyo hela muuqaaladeena cusub. maalin wanaagsan saaxiibayaal meel waliba oo aad maanta dunida ka joogtaan waa maalinimo khamiisa. maanta waxaanu soo qaadan doonaa wararka ugu waaweyn ee maanta laga qorayo ciyaaraha. waxaana wax badan dunidu maanta ka hadlaysaa wixii xalay dhacay wixii xalay dhacaya يا ريرفانا فقاره بنايا برياه كان رير مانشستر يونايتد حتى هداينو جمليك كانوا قادين حالي بيبي جمليك ودو مالها بقاتين بعد سلاد هيبا يا ريرفانا يا ماجد قال لي هذا واو ذيك مانشستر حالي كوم يعني ور حالي وحي سميان وحنا لا اله بكرين انا والله كوخداس عمديد ما هي سوا كتوري يا ور كوخداس وح كله كوخداس وانا واشي war ma ahan ma ahan maryaalo way ka kanu sameynayaan ya marka Manchester waxaan leeyahay malaha taageerayaasha Manchester waxay isleeyihiin war hadaad bacaawa soo baxdeen oo adduunka tusteen nimankan la PSG ee wax kale laga dhigayo ee Neymarka Cavani Mbappe waxaan la sheegayba hadaan meer saarnay ku leeyihiin waran iska harno hadda wixii ka dambeeyay wax marnay ku leeyihiin war waxay xal sameeyeen waa waxaan nin Manchester lagu la doodi doon saakidood ma jirto nimankaas fagaaraha u baneeya waxay heleen maanta ayagu waa koox weyn oo waligood soo jireen laakiin Manchester ta galabka ah ee wiilka madaxdaashka ciyaarsiinaysay ee Chong iyo kuwa kale yariiska ciyaarsiinaysay ee soo baxday nimanka dhan ee lagu tiri kuwa ugu awood badan adduunku arkuwaas koox ma ahan kuwaas koox ma iska dhaaf marada ka dhacday PSG sheekhas carbeed bay lacagta ka daldalayaan mooyaane marka kooxdii galabta ahayd ee Manchester ayaa xalay PSG reebtay wax kale u baahay reer Manchester ma jirto haday biri jamliig ka soo haraan xitaa waxay u arkayaan malaha oo hadayba reebeen kooxdaad wada leedeen PSG ma reebi karaan ma yeeli karaan wax kama qaadi karaan war maxay yeeli karaan ku wada hayseen waa kay xal dhagaha lagu soo dhuftay ya kooxdaas carbeed ee ninka carab leeyahay gurigiisa lagu soo reebay xalay waxaana waligeed kamal dariga ka dhicin waligeed kama dhicin kubaddan sida loo aariyay oo aariyo loogu shubay geedkan la aariyay sida aariyo loogu shubay waligeed maanu dhicin koox inta gurigeeda loogu tago looga soo badiyo ya sida Manchester oo kale xalay oo kale guriga kale markay aad ku soo baxdo waligeed ma dhicin marka Manchester waxaan leeyahay maanta fagaaraha loo baneeyo cid taageerayaashuna hor istaagi karta malaha iyagoon ma taqaanaan ahayn ba war lagu kareyn maanta ay biis jiraba wad ku kareysaa haddaad jirgaan biyo xataa soo qaadata war kuma kareys waad noogaysaa caw badan ku dilaa mooyaane maanta Manchester war kuma kareysiin waana xaq bayn u leeyihiin maanta inay doodaan يا حق بي وليه ما أنت إني دودان ولا كلا دونتو يجو حادث كأو إسكا يا وحق هذا إنه برياه كتا الله بور لجو كرين يا هدوي ما أنت بيش شيرين ما حد كخبان كرت أمريكا وحبا كمان قبا كرتين هداد إسبورت تايوان احترام تاجوش مانشستر يجارت هداد إسبورت تايوان مورا كمان أنت ما إسكالك تأفك إسكا خبصو إنه بوح كفيري شب إسكاله ما وحي حالة يدعي إيه مانشستر كان باقي تاريخي هاي سمايين بدولي دوت كتا هاي والله أنا لقول عمامة ذكرين وريه مرضى وكان عادي مرضى عشوا نينكو رجوا والله قلت ورا عمامة مركو ما تخانا الشقي يستوى قولي يستوى والله قلت وراي عمامة يسقط تور مانتا ورمانتا ما هني أنت مانشستر كسو هاري سوريك سديدا وركيد وصعنا يا ها أنا رجع عمامة ذي ما أنا كستوان تور يا با والله وحن كله هي كوحدة مانشستر جعل بين قوة بيرين دمانتين حالي هدان هاي معاشقين تكمل دارجة هدان هاي دتكي عيارها هدان هاي تاجر يال هدان هاي رجع عيارها وحين هي قوة فلنقين هي قوة عيارها تبين هي ولبا قوة عيارها جعلها تاجر ياشها من محافظ من معارض بقى حالي مانشستر جعل بين بيرين جعل بين جريان وكوحدة تايو وحي جعل كوجو بيريان والنمان ما تخاني كتالو قلب بابيش ريبا يكور والنمان أنا عيارتو قودنا كم مغنا ور ماتج مجوجو ور لينجاد مجوجو ور مارشال مجوجو ور بوجبا مجوجو ور نيم والبا مخن هذا والله بدنا إياه ور كوحدة سبحانه وحي جعل بين بيرين وان جعل أنا مانشستر جعل بين ذا كوحدة سو جعل بين كنسدين معجزة هاكوا كانوا haddaba waxaan u eegi doonaa maanta waxyaabaha laga yiri Manchester United iyo qodobo kale oo ciyaareed baan soo qaadan doonaa waxyaabaha Manchester laga yiri baan si toos u eegi doonaayo horta xalay dabaaldeg weyn baa dhacay
dabaaldeg weyn baa dhacayo oo ay sameeyeen jamaahiirta Manchester ee dunida meel kasta ka joogan Old Trafford ma anahay Barnes gudeed xalay waa lagu dabaaldegayo dabaaldeg weyn baa ka dhacay xataa ragii Manchester dhaawacnay laga soo tagay xataa Lingard iyo xali boodboodkooda baraha bulshada waa qabsaday badreefsa Evermad aragtay oo dhahayo Manchester baan nahay oo dabaaldegayo garoonka dhexdiisa ku dabaaldegaya isaga iyo Pogba wada taagnaayo ayana ku dhex dabaaldegaya garoonku xalay Manchester ciyaaryahan kuwa laga soo tagay iyo kuwa garoonka Barnes joogay sida Pogba iyo ninka la yiraahdo Evra xalay waa la celi waayo dabaaldeg bay qabsadeen waa dabaaldeg bay tuurteeno xalay nimanka dabaaldegay waa meel kasta ka dabaaldegeeno xalay guul taariikh bay ahayd xalay wixii dhacaya waliga kamal daarigan ha ka hor hadlin banooniga kan laba habeen waxaad aragteen waliga waan taan idin dhigi jiray geedkan la aariin cala aboogwa banoonigan aariyada lagu shubay aariyada ku jirto wax balaayo war geedkan uu iska ilaaliya geedkan cala aboogwa meeqaan idin dhigi jiray ya waxaan suurtagal ahay kama jirto maqaarkan kamal daarigan banoonigan waxaan suurtagal ahayn ma jirto habeen hore Ajax waxay dhigtay waad aragtay isla habeen ku xigana waxaan la tusay Manchester waxay dhigayso war yaanu ka tagin banooniga kan calaabug war warkaygu warkan meel ku qoro ya aanu waxaan ka yaabara wax soo socda ya Real Barcelona waa yaabaysa ku xisli hay si aanay bariya war isku soo socda ay leeyihiin ya wallahi geedkan calaabug Barcelona nahay iyo Real Madrid nahay iyo PSG nahay ma jirto banooniga kanu waxaan suurtagal ahayn kama jirto kubadda cagta oo Madrid ma Bernabeu wax lagu reebay oo ma ahayn xali Barcelona wax PSG lagu reebay iska jir marka garoonkeena joognaa iyo Heblowyala waaye iyo Camp Nou waaye iyo waan idin digaya Barcelona waan idin digaya heer fan ay kala tiidi kuna hadda hadashan shan lan badinina hadda hadashan Messi noo joogo hadda hadashan Camp Nou noo dhiman la isku haysan iska jira banoonigan ma la isku halay karo ha mise maalinta la idinka badiyo maradii ka dhacaysa indhaha taagtaagi doonteen iska ilaaliya reer Ronaldo iga xataa ma aaminsan in hari karaan oo Juventus bay ku Ronaldo taageero Juventus buu ciyaara iyana waxay aaminsan odayga waa soo baxay ku hayar oday ku hay meelaha ha kamal daarigan calabugu waa iska jir marka waa kayo xalay ciyaartoogii Manchester ay dabaaldegeen laakiin Neymar oo bira ku boodayo baa xalay aad u xanaaqayo Barnes joogay waxaana uu hadal lagu ganaaxi karo ku caayay garsoorayaasha xalay ciyaartu garsoorayo caayay Neymar oo mashaqaystihiisa wariya adiga iyo kuwan kale lacagta ka daldalanaya Sheikh Nasir Khalifa mashaqaystayaal baatii kulligeen maxaad hadda garsoorad ugu ordaysaa Neymar kanu waa mashaqaysta weyn ninka kanad arkaysaa Neymar waa mashaqaysta weyn waa markaas habeenka bira ku booda ma fiyo ilaahay amarkiisa oo ba aragti waa dhaawacan yahay haddaad ba aragto uu dhaawac buu sheegtaa kanu shaqo marbi iska dhaaf marka xalay markii ciyaartu oo garsoorka go'aanka uu gaaray buu ninka kanu aad ugu carooday garsoorii ciyaarta ayaa kubad ka Pembe gacantu kaga dhacday goor kaga dhigay Buffon goor lagu tuuray Rashford baa tuuray oo ka dhaliyay hadda Neymar oo kulanka awoodi waayay inuu dhaawac ku ciyaaro ayaa Instagramkiisa wuxuu ku soo qoray tani waa wax laga xishoodo waa waxay wali ogolaadeen afar nin kuwaasoo kubadda cagtu fahmeen inay eegaan muuqaalka dhaqaqa leh ya muuqaalka waxay ka yaqaan ma jirto waxay ahaayeen buu yiri afar garsoore oo aan loo cimaamadi karin oo jaahiliina oo aan waxna ka aqaan kubadda cagta yiri bartiisa ku soo qoray marka Neymar waa ka isaagay garsoorayaashii laga cilayo caaya kooxin kaarna u ciyaarta markaas ducad leedahay Manchester aan reebayna wallahi Manchester hadday idin rabto shaqo ma rabtiin war Manchester waa koox weyn ma diidani laakiin Manchester hadii la soo jacburiyo xataa oo cunugo yariis xataa la soo safo madaxdaashada aqoon waa ka badinaysa ka wareen kooxda waa ka yaabay waranu kooxdan Manchester waan ka yaabay wallahi aan ka yaabay si kastoy galab u ahaato kama hordhici kartid natiijadeeda Liverpool maxaad u la yaabaysan Liverpool bareejay la galay Manchester oo ciyaartooyga ka dhaawacnaa tiraadeen waxay Liverpool aragtay hadda arkay Liverpool waa yaabtay waxay la yaabtay waxaan hadii Tomine la safay bareer xataa la iska celin karin way la yaabeen Liverpool marka maxaa lagu eedaa Liverpool wax lagu eeday ma jirto marka Liverpool dhibtaan ay aragtay nimankan wax ma laga qaban karo Manchester nimankan boqorada kan baa weeyaan hore ciidamada iska tuur waxba indhaha taagtaagine ha guriyamane miyasaak wili ciidamada haysataa hor Manchester waa wax kale waa wax nawaalaya waa wax laga qaban karin hor yahay naga daa kuwa kan waa inay nawaalan bay ku dhawaadeen xalay والله وحي حالي سميانا ور إلا إيو حالي دادك خارمينو سيحنبا هورتا معارضك مانشستر كسور جيدي حالا نقول وحن عرب له والله بالله وحسن محمد قدر كشيء يا غبان والله وحن كحمان يا قايو بيشي قرن أركاني وح ما قبسانيسا ولقد وح ما قبسانيسا كحدتها سنة دول بنيكا وكنت عبي تيربيل العو بلنقادا وحن سان لي وسهريان برشلونة أقرصور أكو قاعد لهي هذا ما عندنا فار مال إيدا معنا محل وروحان وح مرة بان كوحدان waa lagu tacbi tirbeela bayaan biishi wax ma qabsanayso nimanka Manchester oo cunugii madaxdaashku saftay ka badisay yahu
حتى بوجبا iyo xalay Romelu Lukaku waxay garoonka ku cadeeyeen wada dagaalsaneen waxaanay u jawaabayeen wargeyska dasan oo maalin soo qoray Bogba iyo ninka la yiraahdo Lukaku in isku dagaaleen ciyaarta Southampton laakiin waxa labaduba la arkay iyagoo markii goolku Rashford uu dhaliyo ku dabaaldegay garoonka yes gacanta isgelinaya iyagoo meesha ka saarayeen inay wada dagaalameen Lukaku bariya waa kacsan yahay ninkaas u malaysa tareenkii xooga weynaayo qarararada ku hayay xooga wariyaha ninku waa khatar ka war haba iska jirjiroode haba iska hadaafay ninku waa wax kale yani ninku xulays baa saaran oo waxa sidoo ninka hore kama ordi karo waa lagu baxsaday Lukaku iska aamus buufan qaaro waxa uu ku leeyahay Champions League aan rabaa waligiis Champions League ma qaadan saano sanad kasta uu oyna Juventus ku soo wareeray looga qaadi jiray waligiisba min 2003 min 2015 kuwa Ronaldo iyo Mareykanka Juventus Real Madrid mar bay ka qaaday saano waligiis oyna PSG soo aad xal asaga qaladkeedu lahaa laga reebay buufan qaaro kubadda cagta kuma in la cimaamaden saanu sanadka istooynaya wariya sanadka dambe isku imaan waa si qaarowday sanadkan xataa madax adeeg la ku ciyaartay mooyaane faca waa fariisteen sanadka dambe hunguri Champions League ayaa isku dhihin miyaad aragtay xalay Rashford oo madax u salaaxay Mbappe iska safarisiya qay oo saaki kabiir Mbappe iyo Rashford maya waxaan haysanaa master 90 daqiiqo waxaad haysataa master 90 daqiiqo miyaad u baahan tahay kale Mbappe Loitin waa wiil aan markasta fiicneen wiilka kanu waa wiil labado habeen iska fiican habeenna iska jiifaya Mbappe kanu ma aha nin ciyaartiisa joojin karaya Mbappe Bell waxa haysta Rashford xalinta loo tagay baa leeyahay iska ciyaar Mbappe madaxa loo dajinayo waa ka xalay madaxa loo salaaxay Allah raash taageerayaasha kubadda cagta waana aad ugu maadeystay wixii ku dhacay Mbappe marka loo tagay madaxa loo salaaxay waxa la leeyahay wariya caadi iska dhig waa tar waa dhacdaya marada ma cishray waa caadi iska dhig waxa la arkay Rashford oo madaxa u salaaxay ninkan oo kale Mbappe Loitino from hero to zero geesi buu ka yimaadeen ninka la yiraahdo Mbappe zero noqday xalay wuxuu khasaari ma aragtay war ninkan ma aha nin qaab ciyaareedkiis joogteen kara ma aha mana ku dhawo lama babardhigi kar labada oday ee weyn Messi iyo Ronaldo waa laba nin oo 10 sano iyo 11 sano la soo dhaafay mar walba ku tagool lalinayo awoodooda ciyaareed joogteynay ciyaaryahan waxa la yiraahdaa ninka ciyaartiisa joogteen kara kanuma joogteen kara ciyaartiisa labadoo habeen iska kacsan oo bibiba wuu orda oo bumagaabti amal u ordaya waqtigii dadkii hore ordi jireen amal u ordaya waqtigii beeli amal u ciyaaraya habeenna waa ka indhaha taagaya cimaamadu leeyahay mala Rashford oo madaxa u salaax yaqay kanu sabarsi taageerayaasha kubadda cagta caalamkana waxay aad ugu soo horjeesteen go'aankii VAR uu xali gaaray in PSG hore lagu siiyo aan loogaga dhigo Manchester loogu dhigo waxa uu ahaa go'aan lala yaabay oo leejintida ciyaaraha iyo falanqayaasha ciyaaraha ay saaki leeyihiin waa go'aan qalad totaliba midba wuxuu leeyahay kubadda cagta waa la inkaaray VAR waa kubadda cagta inkaar loo soo diray uu leeyahay taageeraha kan wuxuu leeyahay VAR waa inkaar loo soo diray kubadda cagta yani go'aanada VAR lagu gaarayo waa waxaan la qaadan karin mid kalena wuxuu leeyahay VAR absolutely wuxuu leeyahay waa wax aad u xun mid kalena wuxuu leeyahay kubadda cagta VAR baabiinayaba kubadda cagta VAR baabiinayo dhulka la galayo oo yani waxa laga soo horjeeday rigoori xal waqtiga la dhigayo mid kalena wuxuu yiri garsooruhuba iyo VAR-ba xalay wax lagu shogay halkaas ka sameeyeen mid kalena wuxuu yiri kubaddii quruxda badnayd ee adduunkan way dhimatay way u dhamaatay VAR go'aanka lagu gaarayo milyan sano oo soo aadanna waligeed ma taqaana cidda bardid uma niyeysan doonto yani uma rajayn doonto waxa kane VAR la yiraahdo inay isticmaalaan VAR Real Madrid xataa habeen dhaweed waa taa kubadda foorida bacday VAR waa laga yaabay bariyaha karu VAR kara war karu dhibkiisa badan wadna kurkuru ku gurida war gacayaris meel ku dhacdo xataa waa la soo fiirina VAR wariya VAR ka laga moodi kara Champions League wariya VAR kan Champions League laga moodi karo waxyaabo qaar oo ka yaabin baad arkaysaa حتى خوف هوست ما كريحي كرت حتى هوست جوجو حتى فرهم وسين كرت ياهو Man City waxa la leeyahay 75 milyan bay ku doonayaan ciyaartooyga lagu magacaabo Chilwell oo ciyaar Leicester dambeedka bidix ugu ciyaaro waxaynu ku doonayeen inuu ku badashaan booska Benjamin Mendy oo ah mashaqaysta weyn kooxdan la yiraahdo Leicester waa koox madax adag ma doonayaan lacag yar inay ku basaxaan Chilwell 75 milyan hadii City keen weyso lama siinay baa la leeyahay ninka kan uu lacag badan oo lamida Van Dijk baa lagu doonayaa Southampton ay ka siiyay Liverpool miyaad aragtay xalay Pogba iyo Romelu Lukaku oo waraysi ka qasaya master libaaxa xalay ciyaarta Rashford miyaad aragtay master 90 daqiiqo magacaas waxa iska lahan jiray ninka lagu magacaabo Sergio Ramos laakiin Manchester ahaan hiba ay u leeyihiin 90 daqiiqadaha ciyaarayna gool laliyaan xalay malaha master 90 daqiiqo magaca waxaan siinaynaa in ninka la yiraahdo Rashford oo xilliga dambe gool laliyay 90 daqiiqo waxa la dhihi jiray master 90 daqiiqo waxa la dhihi jiray Ramos oo xilli xunba gool lalin jiray hadda waa kano
boqoradii comeback uu ciyaara magaca Saka isaga siinaynayo xalay wareysiga xataa ka bixi waayo isagoo wareysiga bixinay Rashford waxa ku soo dhexgalay beesha oo ku dhagdhagay ninka la yiraahdo Pogba iyo ninka kale la yiraahdo Lukaku war waxa xalay dabaaldeg baa meesha ka dhacay xalay tii dhacdaya wallahi xalay maqaara ka dhacay reer Manchester koob xataa ma rabaan xalay horta taariikhdaas ma sameeyeen dadka dham wada dhahay Manchester waa hartay horta ma laga badiyay nimanka aad wada leedin PSG waa xoog badan tahay ku ma la reebay Manchester Saka intaas ku filan Saka in Manchester isku og istaagin Saka in reer Manchester isku ag istaagin booyad biyo banaanka u taal booyad biyo ay soo Cristiano banaanka u taal waa kula doodayaan haday oomaan tubadii biyaha booyada gashay cabayaan adun ba iska baxaya ha iskula doodin Saka in Manchester oo ma bal la doodi karitbe sad kula doodaysaa nimankan cumadka Turka ah dhanka kale xitaa ciyaartooyga Manchester u ciyaari jiray ayaa qaba xalay VAR inuu qalad weyn galay Rio Ferdinand iyo ciyaartooyga Michael Owen labaduba isku raaceen in xalay aanu ahayn mid taariikh hore wuxuu leeyahay ninka la yiraahdo Ferdinand inkastoo jecel xal u dabaaldegay Manchester inay soo baxdo aad ugu dabaaldegay haddana marka daacadda laga hadla falanqeynimadu waa in cadaaladu laga hadlaa wuxuu yiri wallahi aan garsoora warna ka qaadin wax walba garsoorayaasha ii sheega ma ka qaadinay wuri waxa sumahay wax rigoor handball ma ahan wuri kubad gacanta ku dhacday ma ahan wuri taas uma ahan rigoore laga dhigo ciyaar koox Owen baa ku raacay wuxuu yiri wartan waligeed kubadda cagtu waa laga xasan doonaa wiriyo hadii dhowr sano kubadda cagtu xataa laga gorfeeyo hal maalin cidkooda kuma raacay safar inay midaas rigoore ahayd buu leeyahay yaani hadii wax kasta la sameeyo oo milyan sano ay ka soo wareegatay in laga dishkaas gareeyo oo laga doodo oo la yiraahdo war wuxuu rigoore ahayd cid yeeli karmayso cid ma yeeli karto in wax ka rigoore lagu tilmaamo leeyahay yaani Owen iyo Ferdinand waxay leeyihiin waxaas rigoore maan wahayn xalay oo rigoore maan wahayn VAR xalay cadaalad daru sameeyo leeyihiin inkastoo Manchester miyaad aragtay xalay Ferdinand oo ku qaylinaya ya Rashford waa ciyaaryahan wax kala ciyaaryahan heer sare ah asoo ku qaylimad aragtay farqiga u dhaxeeya ciyaaryahanka wanaagsan iyo ciyaaryahanka sareeya miyaad gala garanaysaan buu yiri wuxuu yiri asoo ku qaylimad aragtay xalay cunugan yar waa wax kale cunugan yar waa nin heer sare ah cunugan yar waa nin qatar badan ma aragtay Ferdinand oo xalay ku faalinaya Marcus Rashford waa kan ninka dhahayo rigoor maan ahayn haddana waa taas cadaaladii daacadnimada marka laga hadlo laakiin taageernimadu waa kay xal isoo u qaylimad aragtay Rashford ku haya Allah xalaya xal Manchester habeen bay qaateen waligeen ma ilaawi doona habeenka wixii dhacay maqaarkana geedka ونعلى أبوك يا أخي هوليغانا سولشر أيها كوحدان وطا هوليغانا سولشر وطا ومعلنكي معجزة وكوحدة وطانو عيارتوغي معجزة سمية كوحدة تانو وطا هوليغانا سولشر مركالي وحموجي وح أنا معقولة هنكو بدل عقتوني نكجرين howlgalkii macquulka ahayn filimkii Tom Cruise buu xalid sameeyay Soldier wax aanan macquul ahayn ma jirto leeyahay ninka kanu waa ninkii 1999 xal dhacdii soo celiyay 99 maad ogtahay Bayern Munich oo gool daqiiqad 9aad iska leh oo finalka Champions League ay tahay oo Bayern ay gool leedahay labadii daqiiqo ugu dambeysay ciyaarta Teddy Sheringham baa ka bareejay Manchester Ole Gunnar Solskjaer wuxuu dhaliyay goolkii guusha daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta Manchester ku qaaday Champions League xalay marka waxa watay Manchester ogow ninkii macallinkii kan baaga watay macallinkii taariikhda watay ciyaaryahankii barigu uu ahaan jiray Solskjaer waa ninkii 99kii finalka Champions League ka dhaliyay goolkii waqtiga dambe ciyaartu dhashay ee Manchester ku qaaday Champions League goolkii lugtiisa lagu qaaday finalka ee asagu kii labaad dhaliyay marka waxaanan macquul ahayn kubadda cagtu kama jirto xalay Solskjaer wuxuu muujiyay waxaanan suurtagal ahayn inaanu ka jirin kamal daariga Solskjaer hadda wuxuu leeyahay hadda waxaan u dagaali doonaa koobka noo haray والله ساك عد مانشستر كبغير مجلس كور يا ور كوح كستو جمليغو عيار ساك وبغيسا حتى كو بريمير ليغا كوخدان وكوالي سنيو ور كوخدان ما هيستا عياريان نفيع ما هيستو وكودا داوعين هادنا waa badinayaan war Manchester sida la isku furdaamay Manchester baa taqaana isfurdaamis ma taqaana adigu waxa la yiraahdo habeenka ciyaaryahan ka maqan yahay xataa inaad isbadin kartaa laga rabaa habeenku ciyaaryahan kuwii ka maqan yahay kuwii misan xataa waxa la rabaa inaad isfurdaamisood badisaa la rabaa kooxda kaliya waxa sameyn kartaa Manchester United mar ma ahan xilli ciyaareedkan dhowr jeer bayna tuseen iyadoo ciyaaryahan ka maqan yihiin inay isfurdaamin karaan kooxda weyn ay wax ku guuleysan kartaa waxa weeyaan kooxdan ciyaaryahan tabayn weeyaan Manchester ciyaaryahan ma tabtaba cunugo madaxdaasha lagu soo gelina oo yariis ah waa ka badina Allah kooxdan waa wax kala yaaqay isfurdaamis Manchester baa uu taqaana هاي سيتي مانشستر سيتي اسكا جيره دبكان هدي حتى dadka ka wada dhaawacmaan hatta malax ma laga qaban karo City iska jir wadigu horyaalka rabe iska jir nimanka kan inkastoo Liverpool lacbihiin aduna kuma dhaafayaan kuwa kan iska jir City saako ku dugaya City reer City waa cabsanayaan wax kale waa iska dhaaf niman cabsan waa loo cabsadaa baa leeyahay iska cabsada saakay waxa leeyahay xeerka UEFA ee VAR totally waa wax khaldan saakay sorry baa leeyahay kubadda cagtu waa dhamaatay oo VAR baana dilaya leeyahay waxaan la isku raacayaa saakay in rigooruhu xalay aan wahayn mid sax ah
xalay waa kaayo waa la wada dabaaldegayo odayaashii weynaa waa isku yimaadeen anu habeenkii isniinta barnaamij aan socodsiin oo waday oo television ka waday baan waxaan ka iri markaan arkay ciyaartooyga Manchester oo la safarayo ninka la yiraahdo Ferguson baan waxaan iri oy wariyaha Ferguson baa safariya meesh balaa ka socotaan iri waana dhacdo xalay waatan Ferguson baa la safaray ciyaartooyga Manchester yaani ciyaartooygu la tashkiilinayo la hadlayo dhiirigelinay markaan arkay Ferguson oo ciyaartooyga Manchester la safraya habeen maalintii isniinta ahayd markaas baan nacam iri balaa inay soo socotay Manchester balaa dhigi doonto xalay Eric Cantona oo legendkii weynaa ee Manchester soo ciyaari jiray Faransiiska u dhashay ma ninka la yiraahdo Ferguson oo macalinkiisii ahaa iyo waa kan Ole Gunnar Solskjaer xalay dabaaldeg bay sameeyeen legendiga macalinka hadda macalinkii hore waa kay xalay garoon ku dhex dabaaldegayo yaani markii laga soo baxay qolka dabiska dabaaldeg ku sameeyay xalay miyaad ogtahay Barcelona waa laga qaaday koobkii Super Cup Catalonia hal gool eber baa looga qaadayo Giron baa ka qaaday waxaana gool ku dhaliyay ciyaartooyga Cristiano Stoney daqiiqadii 69aad ciyaarta marka Barcelona xalay waa laga badiyo meel baa la saaray koobkan waa laga qaatay Leo Messi tababarka wuxuu ku soo noqonayaa leer xulka Argentina oo xulka Argentina buu odagu dib ugu ciyaarayaayo ninka kan uu ayaa ciyaari doona ciyaaraha Argentina ay la ciyaari doonaan xulka Venezuela iyo Morocco tan Venezuela ka dhici doonto waddan Metropolitano uu ciyaari doona laakiin tan Morocco ma safri doono maxaa yeelay oo xulka uma ciyaari doono maxaa yeelay marka wuxuu isku diyaari doona ciyaar horyaalka ah Messi ayaa sanadkan isu diyaari doona ciyaaraha Copa America ee lagu qaban doono Brazil bisha June odagu hadduu koobkan qaadi waayo aan oo albaabka xiraa iska yiraahdo koob kale ma qaadi doono waa siiba duqoobayaabe waligii koob xulkiisa uma qaadin ee weyn hadduu kan u qaadi waayo junta soo socota odagu waa iska fariista marka sanad kasta waa goodina waa iska fariisana waa soo kaca waa fariisana waa soo kaca odagu dad la'aan haysiya habraha Argentina bariyaha ilmo ma dhalin habraha Argentina bariyaha ilmo ma dhalin bariyaha kanu ilmo geedka garaacaya ma hayaan warar ayaa sheegaya Barcelona laga dulqaadi rabo ciyaartooyga Rabiot waxa leeyahay Barcelona bariyahan way ka baxday inay soo qaadato Rabiot maxaa yeelay wax yeeleen Dijon oo ay ku qanceen sidaas daraadeed waxa leeyahay Frank ninka la yiraahdo Rabiot wuxuu aadayaa dhanka Premier League miyaad og tahay 7 maalmood oo wareerayn Bernabeu ay soo martay oo ay ka dhacday halka ceeb iyo halaag weyn 4-1 oo lagu dhuftay Ajax ay ku dhufatay 1-0 oo Barca ku dhufatay 3-0 oo Barcelona ku dhufatay habeena mugdiya 7 maalmood Madrid lagu wareeriyay baa soo maray haddii 7 maalmood xun ay soo mareen kooxda Real Madrid 7 qurux badan wuxuu soo maray Barcelona markii wad cadowgooda Real Madrid baa la reebay tan labaad waxay tahay wiilkooda Frank de Jong baa wax kaleeyay tan saddexaadna waxay tahay kooxda Barcelona ee basketballka waxay finalka Del Rey ka qaadeen kooxda kale Real Madrid ee basketballka Vinicius Junior dhaawac habeero soo gaaray waxa la cadeeyay 2 bilood inuu garoomada ka maqnaan doono waxaana nasiib daray ku dhacday wiilkan kadib markii looga yeeray xulka Brazil markii ugu horeysay haddana xul wiilku dhaawac baa soo galay 2 bilood ciyaar uma soo hor istaagi doono tababaraha xiga Real Madrid baa laga hadlayaa leeyahay Solari waxa kulmay ninka la yiraahdo Paris waxaana la sheegaya wararka in Solari loo sheegay kooxda laga dirayo waxaana wararka leeyihiin Madrid hadda waxay doonayaan dhowr tababare waxaana laga yaabaa leeyahay midkood inuu noqdo Jose Mourinho ninka kale inuu noqdo Pochettino ama Simeone Allegri sidoo kale Zidane in dib loo soo tuugo waa laga yaabaa Ole Gunnar Solskjaer maxaa tababarnimadiisa loo haystaa buu leeyahay hadda ninka lagu magacaabo Gary Neville wuxuu leeyahay oo maxaan ilaa hadda macal Manchester inuu dhawaaqay Solskjaer inuu yahay macalinka rasmiga ninka waa dadaalay uu leeyahay war ninka waxaan sameeyay ee mucjisada sameeyay miyaan wali tababaraha loo magacaabin waa in si dhaqsi loogu magacaabo leeyahay tababaraha ciyaartooyga Manchester baa wuxuu garab siinayaa saaxiibkiisii Manchester ciyaartooyga iskala hayn Ole Gunnar Solskjaer hadda tababar u noqday wuxuu leeyahay Jamie ninka la yiraahdo Gary Neville wuxuu leeyahay ilaa hadda waxaan la yaabanahay sababta ilaa hadda ninkan tababaraha rasmiga Manchester loogu dhiibayn way u badan tahay Solskjaer sanadkan laga dhigi doono tababaraha Manchester malaha waxaan isleeyahay hal ol galba u dhiman Solskjaer waa inuu Man City dhagax ku dhuftaa oo uu kooxda u xaqiijiyaa Champions League inay si ciyaari doonto biishii ciyaartoygooda Marquinhos wuxuu leeyahay Allah ciil xumniya oo ciilna hayaa saakay annaga waa isku keenay uu leeyahay inaan harno City waxa leeyahay Toni Kroos buu deynaysaa ay doonayaan oo kaasoo Madrid hadda laga sii nacayo biishii koox inkaaran tan iyo 2012 meel fiican ma gaartaba odagan lacag buu ku fardhiyaa 2012 Europe League ma taqaana ka ciyaarayeenba 2012 quarter finalka lagu reebay wareeg 8 lagu reebay 2003 lagu reebay 2004 lagu reebay 2005 lagu reebay 2006 wareeg 16 lagu reebay 2007 wareeg 16 lagu reebay xal wareeg 16 lagu reebay lacag waa taal halkaas laakiin koob ma yaal 3 sano xiriir waxa lagu reebay wareeg 16 ma shaqaystayaal waaweyn cimaamada ilayhi malaha war maanta ciyaari waa naga inta reer Manchester maalintoodu waa ka ha ku raaxaystaan iska baashaala cid idin la hadli kayta ma jirto intaad ka soo haraysan jamligu bariyahan waxaad ku noolaan doontaan biishidaad sheegaysteen dhagax baan ku dhufanay iska aamus saaki waxba ha isku dhihi mucaaradow Manchester United saaki iyaga iska leh koonka maanta Manchester baa uu koonka iska leh iyagu baa loo banayay maanta inay ku doodaan tii xalay dhacdaya waa wax kale kooxdan jacayl bay nagu beereen haddaan nahay mucaashaqiintii ciyaaraha
waan jeclaanayo waxaan ku jeclaanaynaa wax ka yaabin unba samaysaa iyagoo aanu haysan xataa laacibiinta ugu khatarta badan adduunka kanu iyagoo rag kasta ka dhaawacayn waxay sameeyaan waxaan la aqbali karin bay sameynayaan kooxdan Manchester ah qalbigayna way qaadatay ma aha inaan taageerina ma aha laakiin waxay sameeyeen waa wax mararka qaar aad ka yaabinayood leedahay waxaanu kanu jaceelba ku gelinaya nabadgelyo